kaas waa mahadsan tahay haddii aan ku bilaabno shirkii lagu soo gabagabeeyey hotel Dakaale runtii wuxuu ahaa qorsocod loo qaaday dhanka dowladnimada iyo maxaa ahaato doorashooyinka oo waqti walba Soomaaliya afartii sano hal mar in doorasho la galo waxay ahayd dhaqan siyaasadeed aad u muhiimsan oo wadamada Geeska Afrika aan laga helin oo Soomaaliya kaliya qaas tahay oo ku taxriirnay iyo markuu asoo gashay in shaki badan laga muujiyay in doorasho ay dhacday inay dhici doonin runtii in arrintii laga heshiiyey oo hore loo socdayna waxay ahayd talaabo aad u wanaagsan si badan in ra'iisul wasaaruhu uu ka dambeeyay isu keenida maxaa ahaato mucaaradka iyo dadkii dawladii ayadana extension kartay in meel isugu keenay oo runtii uu ka tanaasulay awoodihiisa qayb ka mid ah oo ay ka mid tahay sugitaanka amniga doorashooyinka iyo weliba qodobo kale aad far badan oo ka tanaasulay runtii waxaa isweydiin mudan talaabadan dawladda ay qaatay yani ma intentional ay u qaatay oo wax maxaa ahaato ay ogeyd ahayd mise heshiiska iyo maxaa ahaato compromise intuu socdaa lagu dhaxalay dadka qaar arrimahaas isweydiinayaan laakiin aniga aragtiyadu waxay la tahay maadaama extension waqti kordhin uu soconayay arkeen kooxda fila Soomaaliya madaxweynihii hore Farmaajo hogaaminayo waxay noqotay in laga maarmaan noqotay in doorasho la galo sababtan waxay ogaadeen in muddo ay soconayeen sidoo kale aysan haysanin cid taageerta dawladda waxa uu soo wadamada dawladda taageeri jiray tabankood in maxaa qarshaadkiisa isagoo saan wasiirka maaliyadda afkiisa uu ka sheegay in dawladda ay daayinta fiicada taas waxaa la karaa waxay soo dejisay in maxaa ahaato talaabadan hadda socodka la qaaday ay soo dejisay marka waxaa isleeyahay Soomaaliya si guud ahaan iyo si gaar ahaan Muqdisho yani iyada dagaalo ka socdeen si guul ah ay ugu soo dhamaatay insha Allah waxaan rajaynayaa in inta dhimar hore loo socdo waayahay Umar waxa kale madaxdii hadashay kamid ah madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya waliba khudbadii Sheekh Shariif oo ah gudoomiyaha midowga musharaxiintu waxa uu sheegay in la iscafiyo marka madaxda hadaladoodii hadaad soo koobto nuxurkooda maxay ahaayeen isleedahay waxyaabihii ay diiradda saareen runtii hadaladii meesha madaxda ka jeediyeen dhammaantood waa wada dhageystay si gaar ah Sheekh Shariif markuu khudbada jeedinayay waxaa ka muuqatay farxad iyo qosol iyo raarayn halka Farmaajo iyo maxaa ahaato Xasan Sheikh ka muuqanin midaas iyadana isweydiinayeen burun tahay si guud ahaan aniga waxaa meesha iga soo baxday in Farmaajo iyo Sheekh Shariif maxaa ahaato si ay saaxiib u yihiin oo madaxda kale si isaga dhow yihiin Xasan Sheikh iyo Farmaajo aan la isku karin meesha waa iga soo baxday waxaan isleeyahay tartanka uu adag u dhaxmari doonaa madaxweyne Xasan Sheikh iyo maxaa ahaato madaxweyne Farmaajo uu dhaxmari doonaa sidaas awgeed ay labadu isku arki karin khudbadii madaxweyne Sheikh uu jeediyay runtii marna ku soo hadal qaadan ku soo shaqaadin madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka halka maxaa ahaato Sheekh Shariif uu ku soo hadal qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka halkaas waxaa ka cad macnaha arrintii isku hayay iyo heerkii gaarsiisneed iyo dagaaladii maxaa ahaato la gala meesha ku cadahay si guud ahaanna in Soomaalidu ay iscafisho yani bulsho ahaan waa wax wanaagsan laakiin siyaasad ahaan in qalad walba dhacay in xalajalaha laga noqdo oo hari loo socdo dhaanigu ma qabo sababtoo ah yani qaladaad hadii ay dhacaan dib inay u soo noqdaan ama xataa macquul ah sida awgeed marka waxyaabaha qaar aan shaqino in lagu soo koobo ma ahan in xisaabtan waxyaabaha maxkamadaha u sameeyay maxaa shuruucda u sameeyay labada xisaabtan waxa qaba aniga in maxaa wixii qaldamaa farqan Soomaalida ee ka xisaabtan si ay dib ugu soo noqonin
intaas marka laga gudbo runtii khudbadaha si guud ahaan way wanaagsanaayeen oo waxaa moodaa in laga soo shaqeeyey sababtaan sidaa u leeyana waxaa laga ilaalinaya khudbadaha xanaf ayaa laga ilaalinaya in maxaa ahaato sida madaxweyne xasan sheekh oo sheegayna hal kelmad oo meesha ay madaxdu ka dhacdo waxay burburin kartay heshiiskii la gaaray sida awgeed marka waxaa isleeyahay khudbadaha madaxda inta badan waxay diiradda ku saareen sidii hore loogu socon lahaa doorasho loo dhan yahay oo maxaa ahaato state fiican lahna loo geli lahaa. cumar, madaxdu waxaa kaloo ay go'aamiyeen in muddo 60 cisho lagu diyaariyo doorashooyinka inkastoo aan si rasmi ah loo sheegin waqtiga doorashooyinku ay bilaaban doonaan. marka arinta 60 cisho doorashooyin ma ku dhici doonaan? marka waxaa isweydiin mudan laguma cadeen meesha 60kaas maalin waxay noqon doontaa 60 maalin oo doorashada lagu dhameeyo mise waxay noqon doontaa 60kaas maalin gudood hala bilaabo doorashada. waxaa la yiri 60 maalmood gudood waa inay ku dhacdaa doorashada, yani taa waxaa micnaha ka dhalan karto bil kadib maalinta 60aad in doorashada aqalka sare la bilaabi karo oo yani waqtigu kuma cadda micnaha waqtiga dhamaanaysa waqtiga bilaabanaysa kuma caddo. sida awgeed marka waxaa isleeyahay qodobkaas wuxuu u baahnaa in si fiican loo faahfaahiyo u baahnaa. waxaa kaloo iyadana isweydiinta badan 60 maalmood gudahood arrintan gobolka Hiiraan lagu dhamayn karaa. waxaa ogsoonahay in guddi ka madax bannaan Jubbaland iyo Muqdisho oo maamul-goboleedyada qaar ay hogaaminayaan loo xilsaaray arrintii la rabo micnaha in doorasho aan la qaban in gado maamul loo soo dhiso. maamulkaasna dadka deegaanka uu ka yimaado, laakiin madaxda maamul-goboleedyada kale iyo dadkii u dirsadaan ay soo sheegaan micnaha dadka deegaanka cidda ay doorteen kadibna si formal si rasmi ah madow usoo magacaabo ka dambena doorasho la galo. waxay la tahay in 60 maalmood in si loo sameeyo wadatashi lala soo sameeyo loo soo magacaabo gudoomiyaha gabdhahaare loo soo magacaabo iyo in haddana doorasho lagu qabto inay adkaan doonto sababtoo ah guddiga meesha isagaa waxay u baahan yihiin qarashada aad iska badan ay u baahan yihiin. sida awgeed marka inay aniga waxay la tahay inay yani doorashada waqtigaas 2 bil oo kale ay kusii darsan doonto, yani ay ku dhici doonto 120 maalin ilaa 5 bil macnaha ugu badnaan ay ku dhici doontaa aaminsanahay. waxaa kaloo laga dhawaajiyey cumarow in dowlad goboleedyada ay doorkooda qaataan oo ku saabsan in hanaanka doorashooyinka goobaha ay ka dhacayaan. marka bal ka waran dhinaca wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. runtii kaasi waxaa moodaa in waxyaabo badan wasaaraha uu ka tanaasulay. arinta dowlad goboleedyada waxaan isleeyahay heshiiskii la gaarayay waxaa meesha aniga iga dhex muuqatay in laga ilaaliyey in dowladda federaalka gacan ku yeelato ama saameyn ay ku yeelato xubnaha lasoo xulay hadday noqon lahayd muqdisho kuwa laga soo xulay ama gobolada laga soo xulay intaba. laakiin waxay ahayd meesha in lagu caddeeyo haddii hadda waxaan kala oranay doorashada dowlad goboleedyadaan kala oranay inaysan saameyn ku yeelan. waxaa ka wadaa muqdisho iyo federaalkan kala oranay inaysan saameyn ku yeelan, laakiin haddii dacii boob kuraas uu ka yimaado dhanka maamul-goboleedyada madaxweyneyaasha maamul-goboleedyada yaa la xisaabtamayo. qodobkaas meesha kuma caddayn. runtii 2016kiina dhacdooyin sidaa camal ah waxay ka wada dhaceen caasimadaha maamul-goboleedyada sida cadaado waqtiga lagu soo dooranayay galmudug, jowhar oo iyana ay ka dhaceen in dad lagu dilo, iyo Jubbaland oo iyadana si lamid ah iyo baadaba ugu dhaceen. marka waxaa isleeyahay si wixii 2016 sirdarradii isla soo laaban waxay ahayd in la muujiyo in maamul-goboleedyada la xadido macnaha saameynta ay ku yeelan karaan doorashada iyo in macnaha sida muqdisho loo dhahay yaan adeegsanin ciidamada iyo waxyaabo lamid oo fargelinta macnaha dowladda loo xadiday in maamul-goboleedyada loo xadiday ahayd. laakiin waxaa isleeyahay caqliga iyo maanka iyo garashada ayaa u sheegi doonta in mar labaad aan la sameynin musuqmaasuq iyo boob kuraas qaar aan la sameynin.
waayahay waxyaabaha kale ee cumarow warmurtiyeedka ku jiray wax ka mid ah arinta maqaamka magaalada muqdisho oo ilaa hadda aan go-aan laga gaarin laakiin ay soo jeediyeen golaha wadatashiga qaran in maqaamka magaalada muqdisho dib loo eego islamarkaana muqdisho maqaam gooniya ay yeelato maxay kula tahay adiga arintaas weliba waa ka hadashay adiga dhowr jeer kaas horta aniga waxaa ku jiraa dadka oo muqdisho in matalaad iyo maqaam labadaba yeelato laakiin waxaa isweydiinta ay tahay yaa waaye cidda maxay ahaato muqdisho ay maqaamka shugayso yani anigu waxaan qabaa qodobada ugu dambe oo soo jeedin ay ahaayeen oo meesha loo dhaqaaqi doono doorashada kadib ayaa maxaa soo jeedin laga sameeyay yani meesha waxaa ka dhalan kara xitaa khilaaf sharciyeed ka dhalan karo wixii maxaa xukuumadda iyo baarlamaanka talaabooyinka ay qaadi lahaayeen haddii hadda laga sii heshiiyo oo loo sii sheegaba macnaha iska dhaaf maxaa ahaato dastuurku wuxuu faraya maahan mawgeedada iyo wasaarahu in arrintaas ay galaan macnaha horta waxaa isleeyahay dhanka sharciga marka loo eego macnaha awood baysan u lahayn laakiinse haddana waxyaabo waaqaca ka tarjumaaya ahayd oo mar walba laga maarmaan ay tahay in labada dhinac isfaham siyaasadeed ay ka gaaraan marka waxaa isleeyahay tallaabo fiican hor loo qaaday ahayd maqaamka muqdisho ani waxaa rabaa in dadka deegaanka uu number one ka yimaado dadka deegaanku markay soo dhameeyaan maxaa ahaato maqaamka ka dambo sida dastuurka uu sheegaa maxaa ahaato hadda waaba la mari waa musti golaha baarlamaanka waa la mari inkastoo loo baahnaa labada golo in la mariyo marka waxaa isleeyahay aniga sida dastuurka u qabo in maxaa ahaato muqdisho maqaam iyo matalaad labadaba ay hesho yani laga maarmaan ay noqon doontaa yani haddii aan maanta leelina waaqaca keeni doono macnaha mustaqbalka waaya waxaa ka hadashay dhinaca dhaqaalaha lagu dabooli doono dhammaan doorashooyinka ka dhacaya guud ahaan dalka doorka beesha caalamkana haddaad ku darto maxay kula tahay dhinaca dhaqaalaha ma la heli doonaa dhaqaale lagu daboolo doorashooyinka intay socdaan halkaas waxaa isleeyahay sida hadda warar qaar ay usoo gaarayeen wasiirkii dhalinyarada ahaa ee sweden ka socday investmentkii u qaabilsanaa maleyna waxaa maqlay in isla shalay oo dowladda sweden dhaqaale aad fara badan oo loogu talagalay in doorashada lagu qabto ay kusoo wareejay dowladda federaalka iyadoo usoo marinayso haadaha united nationska usoo marinaysa marka waxaa isleeyahay doorashada horta dhaqaalaha ku bixi doono yani dhaqaale aad fara badan oo ilaa 40 milyan lagu qiyaasay ha noqoto maxaa ahaato waxyaabo logistic loo isticmaali doono safaro ku bixi doono ama ha noqoto waxyaabo ay isticmaali doonaan gudiyada maxaa ahaato doorashooyinka safaradooda masaladooda ha noqoto lacag aad u yar horta ma noqon doonto laakiin haddana waxaa isleeyahay in dowladda federaalka ay bilaawdo qasbadeeda waxa ku jirtaa qasaba haddii saa la helo macnaha intkale waxaa isleeyahay beesha caalamka laga heli doono sababtoo ah haddii soomaaliya ay galayso doorasho dimuqraadi ah oo maxaa ahaato yani inaan laga hor istaagi doonin aaminsanahay inay dhaqaale heli doonto warar qaar ay soo gaareen waxay sheegayaan in wasiirkii sweden ka socday ee shirka lagu martiqaadayo in dowladiisa usoo wakiilatay macnaha in ay in doonto qaybta ugu badan ee dhaqaalaha beesha caalamka ee doorashooyinka haddana macnaha inay shubtaa maxaa lagu maqaalaa laakiin kolay saxaafadda macnaha laga rabaa inay soo xaqiijiyaan warkaas waaya ugu dambeyn waxaa meesha laga xusay doorka ay yeelan doonaan haweenka ee ah 30% iyo doorka dhalinyarada maxay kula tahay adiga doorashada dalka uu galayo doorka ay ku yeelan doonaan haweenka iyo dhalinyarada kaas waa maasan tahay su-aal mudan in isweydiiyey waaye runtii dumarka soomaaliyeed siyaasadda markay timaado waxaa moodaa dumarka soomaaliyeed siyaasadda markay timaado waxaa moodaa in xaqiraad badan qabasho badan ay qabaan marka waxaa isleeyahay 30% constitution ku qoran xitaa 2016 helin oo waxaan filayaa in 23 helaan sida awgeed marka waxaan qabaa in arrinta qoondada haweenka
sanadkan meelaha in si fiican loo ilaaliyo maadaama ay dastuuriyin ay tahay haddii 50% iyo 40 iyo ka badan ay heli karaanna yani waa muhiim aan qabaa arinta dhalinyarada waxaa isleeyahay sanadkan 2010 wax uu ka duwanaan doonaa sababtoo ah sida heshiiskii 17 September haddii wax iska bedel hadda kuma arkine dadka soo xulaa macnaha ergada keliya oo dhaqameed maahan bulshada reeskii waxaa ku jirta macnaha aqoonyahanada qaybka ah sida awgeed marka waxaa isleeyahay sanadkan in dhalinyaradu ay saameyn badan ku yeelan doonto doorashada haddii ay noqon lahayd macnaha in xildhibaano ay noqdaan iyo haddii ay noqon lahayd in ay go'aansadaan cidda ay dooran lahaayeen kursiga kuma talleedo ergada ay ka mid noqdaan yani si guud ahaan waxaa isleeyahay dhalinyarada sanadkan fursad badan ay haystaan haweenkuna waxaa rajaynayaa macnaha in intay xaq u lahaayeen 30% iyo ka badan haddii ay heli karaan sanadkan ay heli doonaan adwaaleed aad iyo aad baa mahadsantahay cumar cabdulle haddii aad ku cusub tahay fadlan channelkan subscribe saar calaamadda gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno share dhe oo sii faafiyo lana wadaag saaxiibada haddii aad faalo qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi